بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. في شعبان من هذه السنة بشي شعبان السديدات مركا لسوق قاري والرجب لسوق ضافي بي كان ذهيد سرية أبي قتادة إذن كيران أبو قتادة الأنصاري وهو قامين إلى خضرة وكمده dhulka najdi buuraleyda maalmahan dambe yuhuud mar hadii la edbiyay oo la soo afjaray ribaadiyahan iyo qabaa'ilkan buuraha daga ee najdi away hadda waxa la isayo makan heshiis baa lagu jira kuwa marka laga soo dhamaado maka jabin doonta ballanti iyo ardu muharib qabiilka muharib leeyahay dhulka deegaan oo najdi ku yaala way nabiga kaleey salaam ciidanka uu diray 15 nin bay ahaayeen ciidanka dhanbay halka fog loo diray waa 15 فغنموا حول بدن بي سو هلينو 200 oo geela iyo 200 oo ari ay soo heleen dad badan oo maxaabiis oo laga cararayna way soo qabqabteen waasaru maxaabiisna waa soo qabteen oo fi shacbaana 15 nin baa reeraha saa u jeebisayo carabtii iyo gaaladii inay niyad jabeen oo waa ko markii la yiraahdo ay kala fakanaya kala didayaan baa halka ka garatay haybada iskale oo fi shacbaana ومن هذه السنة كمذا بيكان ضحيت سرية أبي حدرد الأسلمي إلى الغابة تبع الله دري ما الغابة اللي يرادو وحي هايان سدح ننكلية إذا كان الله دريو فقتلوا وحي درين رئيس القوم عدي الله دري نيك مدحنا وسود درين وغنموا حولنا وسوق حيستان وأنا صون نقدين يجوا هاي مسا وسدحنين sababta nabigu uu diray waxay ahayd nin la dhigi jiray Rifaaca ibn Qays baa nabigu waxa soo gaartay oo madax iyaga u ahaa inuu ciidan urursi ku jiro oo abaabul ciidan u wado saddexda nin buu diro Abu Hadrad al-Aslami buu madax uga dhigay wuxuu yiri ninkaas ama warkiisa ii keen ama madaxiisa ii keen ama wari xog rasmi ah keen ama madaxiisa ii keen way soo baxeen de saddex nin aad loo arki maaye nabigu gaadiid bay u baahdeen hal neef oo geela oo aad caataw ah oo markuu kacayay dhinacyada la qabtay buusiye kanaan idin hayaa wiir ku kolba mid ha ku sii isku idin ma wada qaade barba mid isku nasiya way isku sii nasiyeen waa sii socdeen de nimankana ciidana ciidaba dhihi mayso saddexna iska socoto wax wariye digiri lama helin xilli habeenimo bay ku soo aadeen meeshii أبو حدرد حلو ورياضة طلع ندين هيا حلو إنه يسقيبين وان يرنا هيا أنت إنه يروى يسقيبين هنا هذه وهلك يستاق إن عاهب الفيس كقل أنا حقا كجري هذه أنا حقا كقل مرك إنتان رواقه أن وير كقادين الله أكبر ده أنا حقا كده هبلنا حقا كده إذا بدل الليل بوده برك iyaguna kabalku haduu dhacay cabsi waa iska jirtay waanagu baadiyaha waa idin sheegayo markii baadiyaha la iska hor yimaado waxda nabad ma jirta marka lagu yiraahdo waxa la dhihi jiray ha hadii la idin ka helo isma dhawaan jiray qofka xagga la kala istaagi jiray inuu qofkan dareen iyo balaayo wadiyo in kale ilaa aad si fiican u garato cabaar banaanka ka wada hadashaan la isma soo dhawaan jirin يقول بوافيجيو ديار جرو دغال با ديارو تهيبا هبين يا مالين قفكي كا هور يماديدان اقون انو دغال u socda diyaarta saasa la iska wadaha nin bay meel u dirsadeen ninkii bay ma soo noqon waay kuwi gaaladaha ninka odayga ahaa ay war ninkii ma badhib ba ku dhacay ana raadinay kaasa waxa la yiri may adiga ma ahe rag waxay anaga raadinayne iska joog wuxuu yiri wallahi inaan anigu raadin بس وان قراعينا بالي والله انا نني راعيني بقول ملقي با غلay ninkii wuxuu soo raadiyay waana habeen uu soo baxayo halkuu ku gabanayay Abi Hadrad al-Aslami xaqiisu soo aaday ninkana fallaad wuxuu wataa aan caadi ahayn markuu agtiisa marayo buu halka wadnaha kaga qotamiyay hatta ay ma dhihin ma shanqalina qalaf waa dhacay madaxu ka goostay marka ninka madaxiisii kan buu ku ogaay moogta meesha kolay uu ku ritay madaxii ciidankii ninkii bay waayeen way yaabeenoo kii hore lama hayo kii madaxda ahaa ee raadiyeyna lama hayo cabsi iyo waxaa balbalaa bilaabatay markuu arkay
buu qaaday dhinaca weerarka qaad Allahu akbar dir buu ku siiyay labadiina xaggay kaga qaadeen figix baa la siiyay marka kan ku dhaji kan qabo wax badan oo soo kaxaysteen ninkii madaxiisa isagoo kolay ku watana Madiino keenay ciidanka dhanee jabay waa 3 nin waxa jibiyay reerahan dhan laakiin iyagu ma oga 3 nin ay hindi ciidan xoog badan baa loo haystaa Soomaalidu waxay ku sheekay jireen carruurta waagan ahayn wixii wax laga qaatay xoolaha laga dhacay kaligeed ciidanka dhan ciidan badan isaga dhigtay ma taqaanaan intee faraska soo qaadatay oo waxyaabaha ka lalmisay oo wada koobooyin iyo waxyaabo badan ku xidhay oo habeenimo ciidankii ka soo daba oraday waxay tiri dhihi jireen awowii kooreeyo awowii koore liibaanow ma kaligay bay imoodeen fardaha qoobkooda kala duwan dadkii markay maqlaan qalab iyo fardaha kala duwan marka la yiraahdo oo kaligeed ugu hada ciidan badan baa la moodo waa la qaxay marka nimanka sidoo kale taa ku dhacday ka soco وفي شعبان markii la soo gaaray oo min hadhihi sanati kamida bayna qadad jabisay quraish ahdaha ma'a rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam heshiiska nabiga la galay bay jabiyeen heshiiska nabiga markii Xudaybiya la galay laba isbahaysi baa la noqday qola la yiraahdo Khuzaa'a oo quraish waligood col ahaan jireen oo gaalkoodii iyo muslimkooduba nabiga la jireen oo hatta u soo sahmin jireen oo waxa lagu sheekaysanaya gaalka reer Khuzaa'a markay muslimiinta iyo quraish dagaal noqoto muslimiintu safka la gali iyagana quraishna qola ay nimanka islaayaan bay la safan tahay oo hubka siisa waliga isbahaysiyadu waa jiri jireen markii heshiiska nabiga quraish galeen qoladii kale waxay dhaheen anagu dhinaca quraish baan ku beeray heshiiska isbahaysigaas aan galay markay saa dhaheen bay kuwana waxay dhaheen anaga dhinaca Maxamed baan ku beernay qayb badan oo islaamana way jireen intoona islaamka ayna muslimiinta daacad u haayeen laba isbahaysi baa la noqday marka labada qolo wixii la yeelay ballan jabis waay qoladii kale baa habeen hub quraish baa hubaysay reer Khuzaaco nabad isaga jiifa baa lagu kiciyay xoolo la qaatay iyo rag la laayay iyo haweeney carruur la tagay baa laga dhigay reer Khuzaaco waa soo qayliyadeen nabiga u yimaadeen sallallahu alayhi wasallam waxa ku dhacay heshiiskii in la jabiyay oo nimankii loo soo taakuleeyo hoosta ciidan iyo hub lagaga soo daray bay u sheegeen nabiga alayhi salaam xilli habeenimo loo sheegay isagoo guy garabka u saaran lahaa wali aan saaranin oo jiiday ayuu soo baxay wuxuu yiri hadaan idin gargaarin alla bay ma gargaaro halkaas ciidan labaab laga bilaabay daga heshiiskii waa burburay anagii reemaka weynoo tahay way nabigu qolihii duurkay baadiyahana labadii sano waa soo idbiyay dadaadu fara badan oo 4 jeer ka badan dadkii muslimiinta ah cusubna waa islaameen hogaamiyaal cusub oo badan oo reemaka soo islaamay odayaal badan dacwadii dad badan iyo guri walbay gaadhay yahuud waa la soo afjaray iyo kuwii docka wareenka ah iyagana waa la soo afjaray anagii reemaka waa noo tahay marka ciidan buu abaabulay nabiga sallallahu alayhi wasallam dhacdooyin baa dhacay marka kale وفي شعبان من هذه السنه كميده arinta markay dhacday nimankii qurayshaha waa ogaadeen qayla dhaanta Madiinana waa soo gaadhay heshiiskii ka baxeena waa ogaadeen cabsi badan baa gasho in lagu soo maqan yahay Abu Sufyaan ibn Harb baa yimid Madiina wafdi ugu yimid nabiga liyujaddid al-ahd ma'a rasuulillahi sallam inuu heshiiskii dib u cusboonaysiiyo wuxuu warniyahu khalad baa dhacay in heshiiskii dib u soo cusboonaysiino wixii dhacayna ka wada hadallaan kugu yimid nabigu hadalka markuu yiri falam yarud alayhi ma jawaabin nabigu isaga dhaqaaqay jawaab ma siin nabiga sallam tuu fiiriyay isaga dhaqaaqay taa macnaheedu waxay u dhigay Abu Sufyaan waxay uga dhignayd anagoo de wafdiga iyo dad cid la soo dirtay wafuuda lama laayo xana lama dhaho waad noqon kartaa laakiin wax heshiis soo damboon idin la galayno ma jirey waxaan kale helaan leena طبعا صح nagu haayo xaalad coladeed Madiina beelay ka jirtiyo abaabul ciidan in lagu jiro buu hubinayay وفي شعبان وفي رمضان من هذه السنه كامله nabi ciidan buu diyaariyay dad khaas ah oga inuu Maka u socdo laakiin dadka wuxuu moodsiin jiray Tabuuk waxaan ahayn nabi dhinaca markuu u baxayo dhinacaasina u baxayo dadku uga dhigi jiray ma sheegi jirin beeno meel heblaan u soconaa beena ma dhigi jirin laakiin intuu meelaha banaanka dadka ugu yimaado waxa loo ambabaxayaa Mombasa wuxuu leeyahay ka warrama jidka Gaarisa
qolihii reer hebel ee mirhabla deganaa ka warramo ciidan intee leeg bay leeyihiin intee leeg bay inoo jiraan dhaxda dadka ku jira miyagay la safan yihiin mise innaga waraysigaa markay jaajuus oo dhan uu maqlo orod baa la ordiya wariyaa waa laydinku soo maqan yahay baa la dhihi ciidan la abaabulayna waa la arkaa xaggaa unbuu jaajuus oo dhan u ordi dhinacii buu u bixi markuu halkaa dhaxda amaraya reerihii iyo dadkii ciidanka dhaqaaqiisa arkaya ka baxo mararka qaarkoodna habeen ay noqoto buu dhaxda ka jiirayn si xaggaa uun digniinta ugu sii dhacayso qoladii xagga oon waxba iska ogeyn oon warba gaadhin uu duldegi marka tawriya la yidhaahdaa mararka qaarkood ciidan yar buu diyaarin ciidan weynna waa diyaarinayaa wuxuu leeyahay jidkan sii sahmiya halkaa mara midhibla taga raggii oo meelaha marmarayaa lagu arkay waxaa leeyahay wallahi ilaaladii ciidanku waatanoo xaggana loo socdaa xaggaana looma socda bogow subaxii waagu markuu bariyay ciidanku diyaar noqdo unbaa jidkanaa kuri lagu dhaqaajin wixii jaajuus ahay oo dhan xaggu aadoogow warka geynayay tag xaggaa la orday xaggaa un sii qoladaa difaacay ugu jiraan qolo kaloo difaaca ku jirin unbaa la duldegi laakiin rag khaasaa ogaan jiray mar walba raggaas ragga reer badarihiyo baa ka mid ahaan jiray waxaa ka mid ahaa raggii xogta ogaa xaatib bin abi baltaca saxaabiga la yidhaahdo xaatib bin abi baltaca nin reer maku aha oo muhaajira reerkiisiiyo ilmihiisiina makay jireen weli isaguna madiinuu joogay hase ahaatee reer maka ahaatee nin reer maka u dhashay ma ahayn nin reeraha ku dhex nool buu ahaa waxoogay shaydaanka wuxuu sheegay oo wuxuu ku yidhi war raggan kula socda reerahoodu xagga ku dambeeyaan maka dagaalkan la socdo nin walba ilma adeertii baa joogo haweenka iyo carruurta badbaadin adiga laakiin wax ilma adeerta ama joogaano adoo keligaan baad reerahan dhaqan iyo dhiigun baad la wadaagtay iyo quud iyo qaaraane umaadan dhalan saa hadday tahay maxaad samaysaa alalahay arsala wuxuu diray xaatib bin abi baltacata kitaaban qoraal ilaa qurayshi buu u diray yukhbirhum ugu sheegayo bimasiiri rasuuli sal slam ilayhim nabigu iyaga inuu soo socdo oo iyaga ciidanka ku soo fool leeyahay buu hoosta waraaq ka diray warqadii laakiin quraysh ma gaadhin warqadii la diray qof dumara buu sii dhiibay qofkii dumarka ahaydna dumarku waxbaa la qarqarin haddii la yidhaahdo weligood meelaha khatarta waa loo isticmaali jiray innaga meel kasta intay soo dhaaftay ciyaalkeenna isleeyisu babaawaga gabdhaha intay hoosta geliyaan alaabta qaada saas uma taqaanaan baangadaha iyo waxyaabaha qaarkood qaybta gabdhaheesu babaawaga ku jira baa alaab kala gudbiya markii baaritaan iyo wax socdaan islaam baa loo dhiibay islaantii timaheeday ku dabtay warqadii way ka cabsanaysay in la baadho timihiina maryaheeda ay sii kor xidhatay see la yeeli marka way dhaqaaqday jibriil baa yimid waxaa la yidhi xaadib waraaq buu qoray qofka islaanta ee halkaa maraysa ee xilligaa halkaa sii degaysaana loo dhiibay hawsha wax ka qabo nabigu laba nin oo saxaabadu diray waa cali ibn abi taalib uu ka mid ahaa islaantii meel degan baa loo tegay waxaa la yidhi haye warqadii keen baa lagu yidhi alaabteeda la fatashay waa laga waayey warqadii keen warqadee warqadii xaatib ku soo dhiibay keen baa la yidhi waxay tihi waraq ma arag waxay warqad waad aragtee keen warqad ma arag nabi maxamed been ma sheegine ama warqadii waad keeni ama dharkaanu kaa dhigi baa la yidhi annagaa ku baadhi oo meel walba kaa baadhayna kor iyo hoosba markay aragtay inay dhab tahay waxay tihi waan keeniye wax yar iga sii yarjeedsada waan yar xishoonayaa cawradeeda inaad aragtaan ma rabee meel bay gashay madaxeedii bay gelisay fag way soo saartay warqadii bay soo qaadeen nabigay u keeneen sal slam nabigu warqadii markuu akhriyey wuxuu yidhi xaatib buu u yeedhay innaga hadda ninkii saa sameeya maxaa lagu samayn lahaa ya qoortaa loo casayn lahaa xaatib buu u yeedhay wuxuu yidhi xaatibow waxaan maxaa kuu kallifay buuri maxaa waxaan kuu kallifay wuxuu rasuulka ilaahayow waxba yaan laygu degdegin diinna kama tegin dan kalena ma lahayn gaala jacayl laygama keenin ninaan reerka u dhalan baan ahaa ubadiyo ilmana waa iga dhex joogaan raggan kula socdoo dhanna carruurtooda ilmo adeertood baa xagga joogtiya walaalahood oo carruurtii haweenka ilaalinaysa anigu markii aan wax ila dhashay iyo dhalasho aan naga dhaxaynin waxaan is-iri buu yidhi waan ogahay buu yidhi mar walba ilaahay baa u gargaaraya rasuulkiisaoo reer maka waa laga adkaan
mar haddii laga adkaanayaba inta abaal ku yeelo ilmaha yeena kaa laynin baan isiri buuri markay xaaladdu kululaato inta ama ilmaha kugu badbaadiyaan baan islaha wax kale igama ahayn nabi wuxuu yidhi sadaqa xaatibun runtii way yidhi ninkan wuxuu runtii jiray buu idiin sheegay intaas hadallaa nabiga ka agyeedhaya khaalid bawdid baa fakfakanaya cumar baa ku fakfakanaya isdaa baa laleeyahay ninkan tuuggan khaa'inka madaxaan jare qoortaan u casayna nooda wuxuu yidhi nabi kuntaa yidhi run buu idiin sheegay buu yidhi cidna lama hadli karto eray xunna lama dhihi kara buu yidhi xaatib ciidankiina waa laga socday halkaasay ku dhammaatay halkaa way halka la iskaga qabsaday qofkii muslima gaalo u jaajuusa ma la iska dili karaa xaatib nabi muxuu dili waayey qisada asaaskeeda halkaas weeye saa darteed jamhuur ahli ilcilmi waxay qabaan inaan la dili karin jaajuusnimaduna ayna gaalnimo ahayn hadday gaalnimo tahay xaatib baa gaalo baa la dhihi lahaa waxaa ku soo degay qur-aan yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum awliyaa tulqun aayadkaasa ku soo degay nabigu xaatibna ma dilin mana canaananoo ma caayin jaajuusnimaduna gaalnimo cad ma aha hadday gaalnimo kaa keentayna waa gaalnimo haddii kalena diinta ma buriso dhiiggana si toosa uma bannayso waa laga yaabaa qofku haddii ogow jaajuuskuna waa ka dhib badan yahay askari saf galay nin askari oo saf soo galood xabad ku rido xabad kugu soo riday nin xogtaada bixiyo ciidan kugu soo hogaamiyey yaa daran jaajuusku wuxuu geystaa waxaynan ciidan boqolaala geysan karin buu geystaa ninka madfaca diyaaradda soo hagee intay ciidanka madaxtooyada ku dhacday gam kaga dhigta soo jaajuus ma jaajuusku waxa khatara waay adigu ka soco wixii naga khaldanaa inu saxno facadarahu rasuulka u cudur daaray sal slam wacafaa canhu waa iska cafiyey وفي رمضان من هذه السنة تبي كانت هيد سرية أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه على دري إلى إضم ما اللي هذا الله دري للتمويه سلو مرين حبابيه على المشركين قال هذا إن كان يسدد نروه قامين يا الله دري لنعي مكم موين لنعك على الله دري ما كي لنعك على الله دري صهن يهرد عهان هلو فهمه حقا ينانوس عنا هلو قاطعه و jahawareerintii iyo habaabintii way iyaga lagu mararabinay dadka jawaasiista nimanka soo lama dirin xagee aadeen meelay aadeen xagee loo diray dhinaca idan baa loo diray al xagaas u socda ciidanka xagaas loo diyaarinaya xagga loo wada orday jaajuuski baka loo doomaray marka dhacday markaas ayada quraana ku soo degeen 8 nin kamida oo la yiraahdo mihlam ibn jathamata la yiraahdo يا وحوي كده حين شرتي حلق الجاهلية دي إن ليراد عامر بن الأضبط ليراده با وتوني الدجالي ديك بكده حين شري ملحم وصار إسلامي سديد دنينا الله سعتاب وقتادنا كمديه سديد دودي ومال فرديا عامر بن الأضبط كيف صومري السلام عليكم ويري وعليكم السلام بده يقول ما يقانا مالو كو إسلامي مين نقول لكن السلام عليكم سلامة المسلمين توي وحي عستانو تهي قف كان مسلم نويه لكن ما عدا قال لي بقى لقوه قارو كو إسلامي لما يقان السلام عليكم وعليكم السلام مو ضعفي مرك حوغي أري ووتي وسكا ضعفي نكي وكذا وكعي وحكد حيي فلاد بكتاغي نب كوف قلفات وادري ورواس ده مسلم ما هين بو قلبها قرآن بس سودة مرك آية القرآن باكو سودة إلهي سبحانه وتعالى وكل هذا قف ذي ماده ألقى إليكم السلام ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا قف ضيد السلام مسلمتي هذا هنا إسلام نمضوا مركة قفك حكم كدي إسلام نمضى مالك سي نفتي سي ديجي سلبت بعدين أيوه شرط ما إنه لا إله إلا محمد رسول الله ده دكتور أستان مسلم ما هذا كم وقته صلاة الإسلام هو كسلامي قف كاس إلى أتكو مسلم نوصنا هين سيد مسلم كان له بدبادين أستان هذا كسب هذا ولذلك التولد هدي لا آذان كم قالوا تتكلم تعبان كرو من آذان لقى قر له قاضي عدي إلى هوس الله بارو لو وجاده تتك حكم مسلم على الصينية حال الربع تتك إن لبر 10 تتك الدين باللغو يري إن إسلاما بالربي إن الإسلام نقطة واد بدبادي إن لبر الربي nin aadaamaya wa salaamu calaykum kula hadaad disho dadkii ma garanayaan waxay ku badbaadaan wax lagu badbaadin karan maayaan inagu hadda masaajidda mixraabka wala soo fariista
wargaalku masaajidka mu ka soo baxo iyo gaalku salaad badana maqasheen wargaalku quraan akhris badana iyo gaalku salaad badana nin salaad ku tukaday masaajid oo ridda lagu sugayay isagana aan ogeyn oo salaad sunna iska galay ama kitaab quraan iskala kala baxay yareey wargaalku salaad badana gaal quraan akhris badana iyo quraanka ku canaananaya salaamu calaykum bidiyiri maxaa u disheen muslim ma u dhahdeen soo kala foga waxba naga khaldan hal saxo وفي رمضان ومن هذه السنة كاملة أي خرج رسولك بحي صلى الله عليه وسلم بجيش عيدا كيس من المدينة بكبحي لفتح مكة مكاسر الله فرق عنت اللي وسو قريب قريش تنو لكري وهي مدة دار هايدنا بس هذا بعد الله سو أفشار بارنتن وفي رمضان من هذه السنة كاملة بجاء العباس بن عبد المطلب يمد بعياله عرتي سسقواتا من مكة كيمد مهاجرا إلى المدينة وسو هجرودي فالتقى بالنبي وحوكله صلى الله عليه وسلم بالجحفة ماشى اللي هذا جحفة مقالدي ويسكب بعضي وعمل عن جدة وحوي كدارين رابغ باللي هذا هذا تقول الرابغ اللي هذا ويا هذا وسو هجرودي سقوا صوص صعدة إذا كان النبي المسلمين تو الصعدة يهلك كجهر يمد كهر بو إسلامي لكن مركز المدينة مكان سقوا صوت تقع عن صدي وفي رمضان من هذه السنة كاملة جاء وحاكلو يمد مخرمة بن نوفل وابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب النبي الماديريين يو عبد الله بن أمية تايمد عبد الله بن أمية متقنا وانكي عمرو بن العاص الراعي يقول لي حبشه هجرودي كدب تجي جري سو علنتي عبد الله بن أمية يا عمرو العاص بهاي عمرو العاص وكسو الري سنة كهره سنة كان صو إسلامية فالتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى كل من واسلم وإسلامين وفي رمضان من هذه السنة جدك الله صحيح وقبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة تنتو سنجرين يؤسلم إسلامي أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبدير بن ورقاء أبو سفيان وأنا كرر مكان مدح ذوها يجوا صوص صعدة أو بنانك سهمنا يورا محمد عيدن كسنتي سوتشران ويسود دوادين بالمالها انتين نبورها فولو عيدن كدبك وشدان يا إنه أجنو عيدن بدن بعمسوا عيدن يرله بيقول لي إلى على سوق قبطي markii la soo qabtay raga soo qabanaya badankood Abu Sufyaan ma yaqoonin wajigiisa magaciisa way ka daragsanaayeen ninkii ciidanka Uhud muslimiinta la ay hogaaminayay iyo ninka reer Makoodhan hadda madaxda waa inuu yahay inta ka warqabeen laakiin wajigiisa de ciidanka hadda rag badan oo madaxood magacooda taqaano haduu ka hor yimaado miyad garane ma garanaysin badan oo kamida hadii la soo qabtay Abbas baa arkay oo markaa nabiga la soo noqday Abbas markuu arkay waa gartay ciidankana rag adag baa ku jiro ninkan yaqaano hadday arkaan ka gaarsiin intuusan nabiga loo geynin qoorta goyn baa jooga Abbas waa soo qaaday faraskiisu soo saaray nabigu u soo socday nabigu ciidan badan iyo saxaabada oo degan baa ka sokeeyay xilli yar madow ana waata aariftiina maaha wuxuu soo agmaray Umar al-Khattab meel fadhiya Umar baa fiiriyay oo gartay baashi seefti soo qaato waa soo kacay waa la soo cararay Abbas Umarna waa ka soo daboorday nabigu uga soo horeeyay Abbas wuxuu rabaa ninkan inuu badbaadiyo Umarna wuxuu rabaa intuu nabigu u tagay nabiga wax kuma dhihi kare intuu nabigu hortii u tagin ninkan dad muslimiin oo badan buu qabaayo eed badan baa ku maqane inuu ninka kala tuuru rabaa laakiin waa laga hormaray halkii baa la isugu yimid cadow Ilaahay baad soo caydinaysaa la soo cararaysaa Soomaha soo dhuuminaysaa adigu hadal la dhaxmaray Abbasna wuxuu yiri Umarow qoyskiina reer Bani Adi haduu yahay adoo la soo carari lahayd إذا رير كنا هاي بدو هليلي سينا دشور ربطاء يريض هذه الشفاء هو ساهينه أنه وحنا وصوا عرري يجي يحكي هايسا نبي عليه السلام هل كيبكو إسلامي ولا أقبلي وأنك نلمح حتى نبتش علبه أبو سفيان مركز تول لو ذا تشوجو ضد كأنه وحون ديري هاي بوشعلان شري رير مكان يسقى وضيوه وأمرك النبي قال له دونه سول كلا رير مكان كان ويقدريان سقانا مذحوه سنوان مقعد شعل وحب أبابولي كراد قالما إذا كين لك لا فرفرة هدي لا الربو نين كان وحجارها الله قرته مركا النبي يقول إيه هي من دخل دار أبي سفيان فهو آمن نينك يقول أبو سفيان قال إيت كستو ونجق بي وابن بدقلنا وبدبادنا معنا يقول أبو سفيان وأقول بدبادة يا وي ولي نين كان يتحجرين بوليه
weli ninkan tixgeliya nabigu alayhi salaam dadka madaxdooda ninkii isagu soo indha adkaada maahane sharafta kama xayuubin jirin weligii ninkaaba qabiila hal nin buu bedelay inta kale qololba ugaaskoodii suldaankoodii kaaba qabiilkoodii u daayay laakiin hadda madaxda iyo siyaasiyiinta ama magacooda hadda ha wataan ama wax kale ha wataane dadka u horeeya jagada laga xayuubiyo ama shaatiga laga siibo waa ciddii dadka hogaaniya madax u ahayd waa un la sixi jiray dadku cidda dabiicada bini aadamku cidday barteen inay u hogaansamaan ay xukunto oo u dhagan ugul yihiin qof kastoo xukunka iyo talada ku cusubna way ku madaxadaygaan mujtamacuna in la saxoo kala dambeeyuun baa la rabaaye qofkan cidna jagadiisa iyo madaxtinimadiisa dambada lagama laha war hadduu tooso dadkiina ay maqlayaan oo ay toosaan intaan rabnay intaan wey hal ninkaana nin munaafiqu ahaa oo reer madiina waxaa u dheeraayoo nabigu uu sabab uga dhigay nin xun baa too diinta ku xun ma ahayn nin bakhaylu ahaa nin ugaasa oo dadku isugu imanayaan oo gurigiisa la imanayo oo koob shaaha dadka u shooynin oo koob biyaa laga cabaynin wuxuu yidhi nabigu qoyskiisii wuxuu ku yidhi waryaa ugaasidiina horta reer ansaar bayn ahaayeen aljudd ibnu qays bay yidhahdeen laakiin ana dhubakhilhu ninkaas wey laakiin waa nin gacan adag bay yidhaahdeenoo waa hebel dhagax waaye waxba kama dhibcaan waxba kama daataan waxba lagama dheefo wuxuu yidhi nin bakhaylah oo gacan adag dad oday iyo sayid uma noqon karo laakiin sayidukum camr ibn al-jamuh ninkaasaan idin calaama saaray maanta laga bilaabo nin deeqsi oo caqli badanna waa oday ah wuxuu war ninkaasaa nin deeqsi oday oo caqli badane saacaddaa laga bilaabo ninkaasaa ugaasidiina ninkaasuu nabigu xil ka qaaday abu sufyaan oo intaa gaalo hogaaminaya innaga hadda maxaan dhihi lahayn gurigiisa nin kale waa aamin gaaladaa loo beerjilicsanaanaya waa maaha luqadii sharciga ahayd iyo qaabkii nabigu ummaddeenu u maamulo uu rabay sidaas sideenna ma ahayn ninkii sharaf leh sharafta ka qaad ninkii shaati qaba shaatiga ka dhig ninkii kursi ku fadhiya ka deji ninkii la ixtiraama karaamada ka qaad ma ahayn man dakhala daara abi sufyaana fahuwa aaminun yaan la taabanin ka dhihi doona way wa fii ramadaana min hadihi sana وبعد العصر اللي تشوفه لما بلغ النبي مسوق ساعة كراع الغميم ميل مكا كركيدا ويه أفطر وأفري على راحلته سوى صارا قديد كيسي ليراه الناس كان والله الصومنا عصر بالا تشوغا ما كان فود الله يسكو هيا النبي قال له سود دعوه رسولك لا يدك ويسومين dadku way rafaadsan yihiin xilli kulaylaha lagu jira dagaal baa la isu diyaarinaya dadkeena aad bay u rafaadeen soonka adaana lagu fiirsanaya gaadiidkiisu soo fuulay banaanku soo istaagay biyo cabay hal cabuu yiri riwaayada qaarkood waxay ku dareen markii saayiri kadib baa loo soo sheegay nabiga qolyo wili sooman markaas uu ilaahay kala xusaa kuwan warkayga inay qaataan rabi kuwa weysi sooman wali ruqsada asaas loo qaatay وفي رمضان من هذه السنة كمدة بودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة تبو قالي فاتحا لسوا فرطي منصورا لو قرقاري مؤيدا حق ألا لقى حوقيا لقى تاقاري وفي رمضان من هذه السنة أيضا أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وحكونا 19 يوما سغالية مع الموت يقصر الصلاة صلاة انت وقابيني صالية ترنكي مع الموت تهل ميلنا مفرديني كل ميل بالا مريي كل ميل بالا دقيا مكية أغاقار كذا لو تشيداي قدها مكة كليا معين وهي دغالة بدن بحرير هذا لو قالي وفي هذه السنة بكان ضحيد سرية أسامة بن زيد رضي الله عنه إلى الحرقات قال لي هذا جهينة قبل كم ذوي قبائل كواوين عرات جهينة كونفرد الحرقات والنبي هو دري حلقاس وحلقي بعد ذا جهينة الله دري ودعذي أسامة إنك وديري دون أشهاتي إن تيهر صح معهن لكن بعد ذا تاريخان sida musannifkeena iyo raga qaar ay u dhigeen ciidankii isagu inuu hogaaminayo macada ma sugna isaga nin kale banin baa muslimiinta laayay gaalaha dagaalka aad ugu adka ninkii bayagoo laba ah isaga nin reer ansaareeda baa labada dhinac kaga yimid sababtii markay dusha aragtay qaadeen ehlaa caadiga hooskeeda u arkay buu ashahatay wana dadkii dhameeyay oo gaalaha oo dagaal lagu jiro intaasoo ninna qaba markaad bahasha kor saartay ama fargada qaba tiri buu ashahatay ninkii reer ansaareeda ahaa shahadii markuu maqlay uu istaago dib isu qabtay usaamana qalaf buu kaga siiyay markii halkaas gaartay ninkii waa dilay
ninkii waa dhintay ninkiina waa ashahaatay nabiga loo sheegay sallam nabigu saamuu yeeray markuu soo noqdeen wuxuu saame arintaas ma dhacday kaasuu yiri ha ma isagoo ashahaatay baa dishay buu la ilaaha illa allah yiri rasuulka ilaahayow inuu ku baxsado uu rabay ka daacad ka waayeen dikii waxaan ogaa nagu sameeyay inuu ku baxsado uu rabay wuxuu yiri misagoo ashahaato la ilaaha illa allah yiri baa dishay rasuulka ilaahay ku baxsado uu rabay ma qalbigiisa jeexday qalbigiisa miyaad jeexday ogaatay waa musay wuxuu kayfa tasna'u bi la ilaaha illa allah idha jaat yawm al-qiyamah qiyaamada la ilaaha illa allah haday kulleetiga kugu dhagto oo ima xurmaynin ku dhahda seed yeeli hadal miyaa yaal usaama waxay ka gaadhay inuu yiraahdo waxaan jecelaystay in maalinta intii ka horeysay aan gaal ahaado oo markaas soo islaamo tigaalkii muslim dilay soo islaamay waa loo dhaafaa sida la igu dambi dhaafaan jecelaystay hadiiba halka nin ashahaatayaan la dirin la yiri inaga ku ashahaatay oo salaada tukaday oo quraanka akhristay oo masaajid ka soo baxay baynu ku shahiidnaa Soomaa waxay ugu yaabadnaa xillaan arkay 2008 inayd baan u maray video baa la keenay nin baa la gowracaya waa shahaadanaya kan gowracaya wuxuu leeyahay shahaado wax ku tarto oo maxaa wax tari lahaadii shahaadadu wax ku tarto macna islaamnimo xataa kuma badbaadaysid waay halkan ninkaasi wuxuu ku calaacalaya soo inaga inta wada joognay soo inta jihadka soo wada galay soo shahaado wax ku tartaa leeyahay halkan nin muslimiinta ilaayo gaalo ashaatay baa leeyahay ma qalbigiisa jeexday aakhara la ilaaha illa seed yeeli waxaan u maray la ilaaha walba kala xoog badane la ilaaha illa allah lafteedu kala xoog badanta ninkii islaam soo ahaa ninkii assalaamu calaykum yirina waa soo marnay ninkii dagaalamayay ee shahaatayna waan soo marnay sadarta waxayna baraysaa kufu man qala la ilaaha illa allah dadka ashahaadanaya muslimka ku degdeg ah laga daayo qofkii xuduud ilaahay mutay oo gaar loo daba galay oo si sharci ah loo xaqiijiyay la garay laakiin ninkii qabiil u dilana kaas ee muslim u dilo uu ku tala galay moogta laakiin waxa nasiib daraa ninkii muslimka ahaa astaamihii islaamka iyo iimaankuna ka muuqdeen inaad janno ku raadiso oo saa ugu fududaato arrin dhib badan weeye tani 10 beenahay Usaama oo nabigu jecel sallam oo markii adkaata la dhihi jiray nabiga yaa hadal kula dhiiran kara oo aan caradiisa ka cabsanaynin Usaama ahayn isagu dadku u jecelaa aabihina u jecelaa ومع ذلك تنوي بدبادين ويدي وحال الآخر سيد يري دون هذا يقان نبي يقول لي أنت هذا لو قمت دبعنين سيدي بو هذا الكود كوكا يستاغي مالين تاس مركي دام بيسكا توبات كانيو والحقيل بان رادين إن الله مدهن دad 10 baa la siinayo qofku xaalad kasto lagu jira haduu ashahaad adigu tuhum baad qabtaa shaki baa kaaga jira marar badan waxa dhacaysa qofka ashahaatay waxyaabaha ku muuqanaya waxaan inayna daacad ahayn oo baanta ashahaada waxba ay muuqanaya ka saari mayso ma shahaatay xuduud sharci oo galo lagu baneeyay dhiigiisoodii aad martay miyaa jira maya ma shahaatay ha qortada alla ka wala aakhira wa fi ramadana min hadhihi sanati xilliga wixii ka dambeeyay salaam maka gacanta lagu dhigay waxooga israaciso hawaasin iyo thaqiif halaaban waxa la yiri intaas oo 10 ku joogsaday hal yiraahdo سوساس ما سي ودا مسان جوجيه تيجي وان ودا قاتي سو خوغي وان كو يردارا 10 دقيقه كو يرداري لا 10 دقيقه انت دمساكل غوغوسان دونه طيب 10 كان خيغا halka wixii ka dambeeya maka la qabsaday gacantay soo gashay hawshu way kala degtay laakiin wili duciyo qalaabo buuxa jira dib badan oo sahlanayn niman la yiraahdo Taif degan oo Thaqif la yiraahdo iyo qabaa'il ka sokeeyo oo Hawazin la yiraahdo baayagana waxay rumeeyeen in mar walba lagu soo maqan yahay nin la yiraahdo Malik ibn Auf an-Nasri ba suldaan u ahaa nin dhalinyaro uu ahaa nin dagaal waaweyn soo galay ma ahayn ciidamadii buu abaabulay isku soo abaabulay labadii qabiil wuxuu yiri intaynan inoo soo gacan banaanaanin halka makay joogan aan ugu tagno meel aan maka ka dheerayn buu ciidankiisa soo gaaray baa nabiga loo sheegay sallallahu wuxuu yiri deedna kuwan dad badan baan islaamka soo galay
dad badan oo isqarinayo islaam ahaaba cadaystay ciidanka muslimiintu dhowr iyo 10,000 buu gaaray qoladana 4,000 meelahaas waaye isa soo urursatay nabigu wuxuu yiri qoladaas aynu aadaynaa tog Xunayn la yiraahdo oo Maka iyo Taa'if 70 kiiloomitir u jirta u dhaxeeya bay fadhiisteen nimankii halkooda la soo aaday marka taasi waa hawl taala hawl kala nabigu markaaba u tiilayo markuu Kacbada soo galay 360 sanam oo la caabudo hareeraha Kacbada tiilay 360 kiiba markaas uu jajabiyay qabax kan kala tuur qabax kan kala tuur kan jajabi kan burburi qabaa'ilkii carabta oo badankood soo wada islaamay asnaamtii tiilay in ol la qaado asnaam burburina buu tilmaam bilaabay nabiga sallallahu alayhi wasallam rag badan buu kala diray hebel midhablaad ciidankan ka xayso hebel kooxdan ciidanka ka xayso midhablaad hebel ciidankan qaada midhablaad hebel ciidankan qaada midhablaad asnaamtii lagu wada yaqiin oo dhan sanamka soo burburi ka soo kala tuur ka soo jajabi ka soo madaxa soo jar ka soo takhallus ka soo kala tuur rag ciidanka waa la kala diraya ciidanka xooggiisana halkan waa la aadaya dagaalka وفي رمضان من هذه السنة إسلامشي بيكان ضحي سرية خالد بن الوليد عيدا كي رئيس خالد هجامي لهدم العزة صنب عزة لديه شريعة عاود الشريعة أبو صفيان لها إن لنا العزة ولا عزة لكم فهدمت ولا سوتش به وفي رمضان من هذه السنة إسلامية بيكان ضحي سرية عمرو بن العاص رضي الله عنه على الدري لهدم الصواع سنة كصنم كالصواعها فهدمت إذن ولا سوت به وفي رمضان من هذه السنة بيكان ضحي سرية سعد بن زيد الأشهري لهدم مناطة أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى فهدمها مناطة وسود به وفي شوال من هذه السنة كمذا بيكان ضحي سرية خالد بن الوليد بودري إلى بني جذيمة قول الله إلهه بودري فقتل منهم رجالا ركبوا كلاي بعدما أسلموا مكة إسلاما كذب فعنفه رسولك عنانته صلى الله عليه وسلم استغوا إسلام نمو وما هي سنين عربت وحي هانشرت واقي هوري dadka muslimiinta nabiga raacay sabaa baa la dhigi jiray waa leexday diintii iyo dhaqankii la lahaan jiray buu ka leexdayo qolihii leexday ee dhumay baa loo yaqiinay qabaa'ilka carabtu nabiga maxamed iyo dadka raacay salan saabiin bay u yaqaaneen sabaa way leexdeen qolihii naga leexday inaga weecday inaga lumay bay u yaqiineen qabaa'ilkan dacwadii diin ma gaarin Khalid wali markuu yimid ciidankoodii islaam la yiri way iskeeneen waan islaamnay inay dhahan bay rabaan say waa shahaataan ma yaqaanaan say islaamaan ma yaqaanaan sabaana bay dhaheen marka iyagu waxay ka wadaan waan islaamnay Khalid wuxuu u maleeyay nimanka wali soo dhiibay inay si caytamayaan Allah lunnayay Allah jabnayay inay leeyihiin buu qaatay dhinac buu ka maray deen rag badan buu ka laayay waxa isku qabteen oo halka kula dagaalamay rag saxaabo oo Abdullah ibn Umar ay kamid ahaayeen halayna meeleen dadku aad gardaran tahay dadka ma islaanay u jeedaan oo ma jeedana waa caytamayaano dad buu laayay wuxuu yiri maxaabiista aad haysaan ni walba ragii gacanta ku jira hal la keeno Abdullah ibn Umar wuxuu yiri ana ka sokeeyay lama laynay dadkan sawlayna soo khaldantay niyo waxba ka khaldan adiga waa la isqabtay markii nabiga loo yimid baa loo sheegay Khalid buu canaantay wuxuu ku yiri Allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a Khalid ilaahu waxa Khalid sameeyaan bari baan ka ahay dadkii waxa islaamnimo loo xukumay islaamnimada waxa loogu xukumay ashhaadadii ma garanayaan ayaan islaamnay xataa ma garanayaan salaamu alaykum ma garanayaan laakiin eray bay dhaheen inay islaameen ay ula jeedeen qofku xataa hadduu eray yiraahdo waan islaamay ula jeedo muslim baa la xukumaya abwaabta islaamnimada laga soo galay inay waasactay soo ma aragtaan meesha laga baxo waa cidhiidhi oo shuruud iyo waxaan ka eegiyo dhinacan ka eegiyo hal la xaqiijiyaa la dhihi uu baxay qofka marka la leeyahay soo galitaanka soo maaha albaabadu waa waasac hadalka ma laga fahmi karaa inuu islaamnimo ka wadaha muslim ka dhig hadalkan muxuu ka waday baad u malayn muslim astaan muslimiin ma idhaa muslim ka dhig assalaamu alaykum yaa iskale
meel laga aadaamay muslim si xukunkood assalaamu calaykum muslim si sabana maxay uga jeedeen tawaslaanay uga jeedeen dad baa fahmay muslim ka dhig nabigu wuxuu yiri markaa waa arsala caliyan buu nabigu diray fawadaahum digtoodin maktoodii buu bixiyay waa ardaahum raali gelin buu nabigu arintii ka bixiyay dadkii soo haray makti dadkiina waa bixiyay way muslim la laayay ahaayeen maxay muslim ku noqdeen waan leexanay macna diintii dadkii lagu yaqeen ka soo leexanay Khalid dilkiisa waa khaldamay ninkii hoggaanka ahaaye muslimka ahaaye intaasoo dagaal hogaaminayay laguma cudur daarin dad muslimaad ku khaldantay walawla rijaalu mu'minuuna wa nisaa'u mu'minaatun lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'aratun bighayri ilm hatta gaalada qaarkood baa la diiday muslimiintu inay weerar ku qaadaan maxaa dhacay dad muslim oo ku dhex jiro idan garanayeen inaad laysaan oo dambaabtaan baa laga baqayaa inaga isagii baa la raadinayaa kii muslimka ah la baadi goobaya habeen iyo maalin marka waxba inaga khaldan dariiqii nasriga lagu gaari lahaa maaha hadii dariiqa nabigu maray laga leexdo oo waa yar dabacsan yahay la yiraahdo oo mid ka adag baan raadinayna la yiraahdo de halkii dariiqa nabigu uu maray uu gaarsiiyay guushiyo liibaan dahay de ka adag ee qalabsan ku gaarsiin maayo kullu nabiga ogaado sidii nabigu sameeyay si diinta uga fiican waligaan samaynmeen sidoo sameeyay haday waxa kula yar noqoto qolihii cibaadada badan ku dadaalay nabiguna cibaadadiisa yartay u maleeyay wuxuu dariiqiga ninkii ka leexda faman rabiqa aqiba an sunnati falaysa minni ani jidkayna hayama وفي هذه السنة إسلا سنة كاس كانت هاي سرية قيس بن سعد بن عبادة إلى الصداء لودر ناحية اليمن دنع يمن شرت وحبذا حقية تاريخه مدبدا وان راديي لكن كتبتي السيرة دي التاريخ ده وحشاء جاد والله طابن كروان كواي سيدا يقول على أرنتاس وفي شوال من هذه السنة ما كان لسوق جاري سلا بيش شوال رمضان لما هذي كانت هاي غزوة حنين بي بعدين عرضي هوازن هي ثقيفة وإسبهيساتي نينك هوغان كودا هانا عوف بن مالك بن عوف النصر نيلا ديجري أياه هوغاميني عيدان دور كونوا صور ورصدي نبي عيدان كيسونا ويسو آدين دور يطبان كون بيهايان وإسمهديان لن نغلب اليوم من قلة إن بلنبانا لغا تربضنايه ولا ما أنت إنان عيدان يترن لو شيغان إنين بيدهان ترى صارت كيلهينا ويها المامين قعدي تريبا ويسو جابين فرحت كودي نبيغي با laga soo tagay nabiguna lama soo jabine uu daba maray rag yar baa codkiisa gartayo markii dambe yar baa loo soo noqday taariikhdeeda quraanka sharxayo wa yawma hunayn idha ajabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'an wadaqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin bali maalintii hunayn xasuusta ee badnidiina aad ismahadiseen badnidiina waxba idin tari weyday dhulkii waasaca ilaahayna idin ku cidhiidhimayo de markaad caradayso meeshaad martaba waa lagu daba socdaa waa lagu arkaa baadii marka lagu cayrsadana hadii wixii soo muuqdo dhan baadin uu ku daba socdaad moodi dad cararayso cabsato laba qabiil oo Soomaaliyeed magacooda sheegi maayay qabiil baabana qolana way yaraayeen qolana badan baa wax cayrsan jirtay maalintii dambe qoladii badnayd jabeen wala soo cayrsaday laba gaar u cararto niman baa soo daboorday kolba gadaal bay fiiriyaan wala daba socdaa wuxuu rebel wama daba socdaan haawayna daba socdaan abaarkay socdaan warwaaqo soo socdaan wuxuu war maxay naga daba socdaan buri inta soo dhan wuxuu war naxariis waxaan waligood wax cayrino waligood wax cayrsanino ilaga hadhay maayaan ila carisiiniyo marka sidii baad moodiyo in lagu cayrsanayo baad moodi saas darteed way carareen wadaaqat alayhim al-ardu bima rahabat dulki waasaca ba ciriiri ku noqday thumma wallaytum mudbirin arar baad baqa dhabarkooda jeediseen maalinka nabigu intuu daamar uu leeyahay ana nabiyyu la kadib ana ibn abd al-muttalib way rag yar baa ku soo haray kadib ay saxaabadii qayb badan dib u soo noqdeen gurmad kala soo gaaray goobtii dagaalkii la isku faraasaaray muslimiinta markii dambe ku adkaaday thumma anzala Allahu sakinata ila aakhir aayaadka markii nimankii la jabiyay xunayn ku jabeen saddex bay u qaybsameen saddex qolo waadi nakhla bay xaqiisa aadeen oo halkaas ay u carareen qolana tog aw taas la yiraahdo oo dhaxda ah
bay isku urursadeen ninkii odayga hore ahaan jiray ninkan ka hor oo indhabeelay oo waayeela oo Durayd ibn Samma la yiraahdana raggaasaa la sheegay inuu ku jiray Awtaas galay qolana Taa'if bay ku carareenoo Malik ibn Awfkii odaygooda ahaa oo hogaaminayayna Taa'if bay galeen waxaa qasab noqotay qolada Nakhla gashay in yar bay ahaayeen labadan kale laba ciidan oo xoog leeyahay in laba ciidan loo kala diro kuwana in loo diro ciidankuna wuxuu badnaa ninka suldaankooda Malik ibn Awf iyo Taa'if buu badnaa ciidankaasoo nabigu hogaamiyay Taa'if kaga daba tagay kuwii Awtaasna nin baa loo diray ciidan baa iyagana loo diro leeyay kuwa iyagana shaqo ka soo qabta qolada firxadkooda kaga hadhimayna iyaga bay si soo abaabuleena soo doontay waan kala firxanay adeer halka tagta waa laga dabayman ilaa halka ugu dambeeyay la soo guriyaa la rabaa aagan Makka iyo jasiiradda Carabtu markaan nabad ay noqoto gacan soo wada gashay طيب وفي شوال من هذه السنة بيكان ذهيد سرية أوطاس بقيادة أبي عامر الأشعري أبو عامر الأشعري وحي ولا ليهن أبو موسى الأشعري ولا الكواي إذن كان نكاسه هجامني نما كاسا لقد بدري أو أوطاس اسكو رصدي ماشى توجه هل كهذا اسكو رصدين دقال كوالا قالي نك أبو عامر هجان كهوال دلي dilkiisu labada waa la isku qabtay falaad baa ku dhacday aan markii hore la garanaynin laakiin markii dambe cidda soo gantay la arkay oo inta la raadiyay la dilay iyo ma ahayne seeftiisu way yaraha gaabnayd seeftii ku dagaalamayay buu nin la gafay markuu la gafay ku soo laabatayo halka lawga iyo xagasha halbowlaha xididkay kala jartay uu dhiig baxay oo waa dhintay labadaba waa la sheegay labadaba isugu darmada intaana ay hayd falaaduna ku dhacdo sababtu ula gafay ba falaadhay haydna way dhici kartaa ala kulli xaal ninkii waa dhintay ciidankii walaalkii Abu Muusa oo la socday ba hogaanka la wareegay muslimiintii meeshii waa qabsadeen xoolo aad u fara badan iyo maxaabiis aad u fara badan ba meeshii laga helay nimankaas waxa laga helay caadi ma ahayn magareer Awtaas oo meel toga ku jiray waxay sheegaan waxa laga helay 4000 oo wqiyadood wqiyadii waa 40 dirham 4000 ku dhufo intay ku soo baxday way 4 ku dhufo waa imisa 16,000 oo baa laga helay xoolo aad fara badan waqtigaas waxaa kaloo laga helay bay yiraahdaan 40,000 oo neef ari ah iyo 24,000 oo geela 6,000 oo maxaabiisana waa laga qabtay oo haween iyo carruur badan halkaas Awtaas baa lagu soo afjaray waxa ku haray marka وفي شوال من هذه السنة إسلام مركز بوسي بيكان ذهيد سرية الطفيل بن عمرو الدوسي نكرر يا منادي أبو هريرة اسكو قويس كهايان لهدم الصنم كيلو سود بيذل الكفين لديه شري أو يسقي يرير كذب يعبد يشتري أنتوا إسلام إنسان كو عبد يشتري واي أرد سود بياليري وتجي ضد كي بيسوي يا ري هدو احتريو ما أنت يسكي عليه ضبوا كل شيء حابوا كل أو حابيجي ضبوا قبتسيي كاسو وحوجي أفرّي كوكرتري حري هذا الكفين لست من عبادك ذو الكفين الضومدي كعابد الشريان كمن ميه ميلادنا أكبر من ميلادك ضل شيء يدانا أنا بكاوي ركعر لا شيء ما كعابدي ده هذا واقع لجو السمايي أنت لجو السماين تاذي ضل شيء إذا كور ريسيبر إن حشوت النار في فؤادك ضبا وضنها كعجا شريب أروح إسكندرية تدو سواء إسلامين سنة يمكن هالكاس كسر دماغي وفي شوال من هذه السنة وفي طريقه صلى الله عليه وسلم لحصار الطائف طائف قؤذو من تيدي وسي سعودي مر ببحرة أبو السيمري ببحرة الرغام اللي يراهدو فابتنى بها مسجدا بوكردسي فصلى فيه وكنت كذي قبل وصول إلى الطائف من تسنقارين وفي شوال من هذه السنة كمذا من في بحرة أيضا لفت هذا قتل رجلا بوديرو من بني الليث كمذا قصاصا برجل لغا قصاصي ومن هذيل كمذا وهو أول قصاص في الإسلام وي من مسلم وديري والله قصاصي
laakiin erayga waa awal qisaasin fil islaam sax maaha waxaan soo marnay almujaddar nin loo dilay ninkii la dhihi jiray Suwayd ibn al-Harith wuxuu dagaalkii ah loo dilay baynu soo marnay وفي شوال من هذه السنة بي كانت هيد غزوة الطائف dagaalkii طائفنا qaybtii u badnayd meesha ay galeen laga daba tagay وفي شوال من هذه السنة كمدة في حصار الطائف marka hareeraha laga taagnaa nazala waxa soo dago darbiyada ka soo booday nafarun kooxo min raqiiq الطائف adoomadii reer طائف ay lahaayeen haysteena faactaqahum rasuulku wa xuriy sallam minhum Abu Bakr ta kamida radiyallahu anhu warda raga dooma aha baada darbiyada ka soo boodo muslimiinta u soo galay oo soo islaamay xurbaatiin buu nabiga kaleey salaam cididin ma soo qabane hada kuwa gacantooda ka soo baxsateen soo islaamteen dadkina dhinaca ka raaca wa fi aakhir shawwal min hadhihi sanati kamida buu rafaca rasuulku ka dulqaaday sallam al-hisara go'doomintii wa aan taayif ka qaaday thumma raja'a wuxuu ku noqday ila al-ji'ranati buu tagay markuu go'doomiyay buu nabigu wuxuu yiri kaleey salaam mudana la joogay waynu ka tagaynaa bari ragii baa is adkeeyeen nimankana dhufaysi adag bay ku jireen fiisaad adag bay ku jireen haye maxaa rabtaan buu yiri waa meesha galeynaa baa leeyay haye bari waynu ku dhaqaajinaynaa buu nimankii waa la dhaqaajin waayay rag badanna waxba dhaawac iyo dhimasho soo gaartay habeenkii dambu yiri haye bari aynu iska tagno waayahay baa leeyay way fiicanta waa la kululaaday moogtay وكسوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجعران ميل مكة أكتادا أو كعمر يصندونه فقدم عليه وحوجب وفود هوازن قد أسلموا في هوازن رواي مادين وصار إسلامني وحير أنا الديوان عيروني سيهنا رياله وحيري حوار بدن وايد كهينا ضد بدن اللي حكولي كبدن وايد كهينا مدورته ضد كي يدويه مدورته ذي وذي علين ماي لكن هذا يدينكو إسكانتين وصو إسلامتين وعردار كانتين مدورت ضد كان دورنا يدهن ولو سيداي فرد عليهم أسراهم محبيستو دو سيداي هالكاس بين ما تكدين انت ضمنا دي بينو كذا ما يستري دونا سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك